السلام عليكم. قواعد الفقهية حلقة دي التوانية اللبات. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل سذا أصل ككؤة في مياهنا بيوغا النغا الطهارة طاهر نموي والأرض وفي الأرض يقولك نحذي سنة أصل وحاؤه الطهارة ظاهر نما ياؤه والثياب مريهنا أصل وحاؤه والحجارة دغحانتي أصل وحاؤه الطهارة ظاهر نما يا أصل والأصل سذا أصل ككؤه في مياهنا بيوغا النغا الطهارة ظاهر نما يا أصل بياد أركتي أما بدها كجرين أما وبها كجرين أما بلها كجرين بياد أركتي وحاد استري طلو بيهن من نجاسة أما وطاهر بيها سوحات كحكوميسا إني طاهريهن محايا لي أصل وحاؤه طاهر نمو كلي وحاد نجاسة ليه كرتا مركات عدين وهيسو إني نجاسيهن والأرض وفي الأرض ملكنا أصل وحاؤه الطهارة ظاهر نما أي أصل dad waxa arkaysa xaafadii dhulkeedii aan ku tukan karin ba waxa jirta roob uu daayo dhulka caadi iska oo bus ahayn oo iskaga tukan karo marka waxa arkaysa qof kale kuma tukan karo ciyaal badan baa xaafadan jooga dhulkii waa nijaaso kuma arkaysa dhulkan wax nijaaso ah uma jeeda waa maya bis waa taahir aniga asalkii baan taaganahay oo ah dhulka inuu daahir yahay marka isii daliil aad leedahay dhulkan waa nijaaso hadaadan haynin inaad aad arkayso masadadan u haynin daliil ama nasa dhulkan waa inuu daahir yahay itus oo idhe waatana nijaaso markaas aan qanacaya laakiin hadadan itus kirin asal waxa waa dhulka inuu daahir yahay marka waa lagu tukan wathiyabi dharkiina asal waxa u ah at-taharatu daahirnima ayaa asal u ah dharkana waa lamido asal waxa u ah daahirnimo cunug yara asagoo har iyo habeenba isku xaaraya oo isku kaadinaya hadaan dharkiisi lagu ogeyn wax nijaasa ah waa inay daahir yihiin adeer yaqiin uma haysa inay nijaasa yihiin waa maya bis waa daahir dad harkaysa kule dharkan kuma tukan karo dad xajira xawaayanka mas'uul gaar ah ifshin qaba wax ka dhifqa marka xitaa dadka culimadu waxay ku dhahaan way u maleynayaan mar qaar xitaa isagoo qofka waxba ka dhifqeen qofka culimadu waxay ku dhahaan biyo qabe iskaga rushay maxaa yeelay dharka asalkoodii ومحي وظاهر والحجارة نجح يذينا واللمد نجح أصل كيسو وإنه ظاهر هاي حكم كان قصة شيء دركة يطلك أمبو نجحنا قاضا والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة شيء وحولي هاي سدا أصل كأوه بيها طلك دركة نجحان أصل وحاوة ظاهر نمو قاعدة intaas way ka guda ballaaran tahay oo waxa la yiraahdaa al-aslu fil ashya'i at-tahara waxyaabaha jira oo dhan asal waxa u ah inay daahir yihiin wixii daliil loo waayo inuu nijaaso yahay wixii daliil loo waayo inuu nijaaso yahay waa inuu daahir yahay hadaad leedahay waa nijaaso waa in loo helo daliil ama aayad quraana ama xadiisa ama ijmaac markaas la oran karaa waa nijaaso ma hadii loo heli waayo daliila qaacidadan ayaa ka xoog badan khilaaf walba oo yimaada يوم الشوكاني الله أن حريسته وحيري منطق النجاسة معها إنه نجاسة هينا دليل بان أوهيستا أو أصل كي بان تاغنهاي الأصل في الأشياء الطهارة وحيابها الجراء أو لن أصل وحاؤه إنه ظاهريهين اسكيل عليه أحبابي وحاجرة حديث أي علماء لن اسكر راعين وعلماء لن أي اسكر راعين إنه النبي صلى الله عليه وسلم كسونين حديث كاسي وحوكاه الله يا منطقة marka xadiidkaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam kama sugnaanin marka mantaga nijaasaha daad leedahay kan daliil waxaan hubaal u hayaa inaad soo heli doonin hadaba aniga asalkii baan taaganahay mantaga nijaasa maaha sidoo kale qofka asalka taagan daliil lama weydiiyaba qofkaasi daliil laga marabo qofka kale ayaa laga rabaa daliil tusalahan oo kale dhuhurka meeqa la tukada dhuhurka waa 4 bal ka soo qaad dhuhurkii waxa tukatayba 5 rakaco dhuhurkii ayaaba 5 tukatay marka aniga waxaan ku leeyahay wadniyo dhuhurkii 4 buu ahaay
maxaa shantanaad tukatay inta kiimad haddaad iraahda ka waran inaan shan tukado maxaa diidaya ma ahayd daliil ii keen inay shantan ka ansaxayso marka qofka manta galay waa nijaaso adeer ii keen daliil maba soo heli doontide daliil ii keen anigu asalkii baan taaganahay waxyaabaha jira oo dhan asal waxa u ah inay daahir yihiin sidaa darteed mantagu nijaaso ma aha qaacidada halkaas aan u gudubno والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل سذا أصل ككوة في الأبضاع فروجتا يعني قلمدا سذا أصل ككوة واللحوم هلبيها والنفس وفي النفس النفط نحذيذا سذا أصل ككوة والأموال حولها سذا أصل ككوة النف أسقناتي للمعصوم روح نفتيسي ديقيسي لإلالي أو أي شريعة إلاليسي كواسو لسكوة الدري أصل كوذو حاوي التحريم حرام وي والأصل في الأبضاع سذا أصل ككوة أبضاع وحالك وضع قلمد الرقة الدمر كالأحمرتا أصل وحاء حرام إنك قبل وقل موضوع أصل كيدو حرام حلال وحين نقول كرتا مركو جور سدو جور شريعة وافقسن سدو كلا حلال وحين نقول كرتا قبل مركي تهاي أدون أوليه الله بدأ سماه إنه جور سدو جور شريعة وافقسن أما إنه تهاي أدون أوليه الله بدأ سماه سكال فروج تكون بنانا كرتو سدو كلا هلبيدنا واللحوم هلبيدنا أصل وحاء التحريم هلبك أصل كيسو وإنه حاران يهي تصالحان أو كله جيلا كسوق مري وحاتري آمينوي جيل كان كروس كيس النوجو سوجو جيل كي ونولي هاجو حتى جيل كروس كيس النول هذات قصته وحرام إلا أدش أما قورعده سشرع عضو فخصن أما من دي أتكو قورعدت أما ورن أما نجح أما الليب مركز وحال لقون كرا ورن تصالحان أو كله وكاع على ريبة واتجار ويسي مركز ورن هتكتب جينيسا هذا قول هي أو كل رايه بسم الله marka duu waranka uu dilo oo aad tiro bismillah waa xalaal dhagax hada ku disho asagana waa lamid uu ka cararo dhagax weyn baad ka dabageysay baw uu ku dhintay bismillah raacisay waa xalaal xabadii aad ku leeshatay dhush baad ka siisay waa xalaal wad cunay asagana leebti lamida wad ku toogatay ku leeshatay uu dhintay laakiin warankan ama leebkan mid ku darso haduu sun raacsanaa sunad ku dartayba oo waxa tiri inuu ka soo kacaan rabaa oo faqfaq dhimba sunad ku dartay marka waxay u badan tahay inuu san leebka dilin ee sunta dishi hilibkaas waa xaraan mid ogaada wan nafsi wal amwali lil ma'sum nafta iyo xoolaha asal waxa uu ah inay xaraan yihiin dadka waxa looga qaybin laba dadka qaar naftooda iyo dhiigooda waa banaan yahay waana gaalka xarbiga ah qaarna dhiigooda iyo naftooda ma banaana والنفس والأموال للمعصوم معصومين توحويه وكوبا ديغودا يا نفتودا با ان بنانين وحانا ويه والروح مسلم كاه يا روح الدميغا او مسلمين ku dhaxnool sidoo kale waxa weeye ruuxa macsuumka ah waa kay muslimiinta balansiyeen intaasiba macsuumin bay soo isgaliyaan nafta macsuumka ah asal waxa uu xaraam iyo xoolahiiba xoolaha asal waxa uu xaraam laakiin xoolaha asalkoodii xaraan haday yihiin marbay noqon kartaa xalaal tusaalahan oo kale qofkan zakaa baaqi ku ah ama deyn badan baa lagu leeyahayba deyntan ma bixinayo marka waa xoog baa laga qaadaya xoolihii waa laga qaadaya arintaana sheeqaba ku sheegaya tahriimuha xaraantinimadeedu waxa weeye xataa intii yajii uu ka yimaado alxillu sababtii xalaaleeynayay ilaa ay timaado xoolahan asalkoodii xaraan soo ma ahayn laakiin ninkan had zakaa baaqi ku noqotay ama deyn badan baa lagu leeyahay marka xoolahan asalkoodii xaraan bay ahayd laakiin hadda xalaal weeye ninkan in laga qaado xataa intii yajii uu yimaado alxillu sababtii xalaaleeynayay ilaa ay timaado wal aslu sida asalka ah fi miyaahina biyowganaga sida asalka ku ah at-taharatu ظاهر نمويه والأرض إيو في الأرض
dhulka dhexdiisana sida asalka ku ah iyo wathiyaabi maryaha iyo walxijaarati dhagaxaanta sida asalka ku ah at-tahaaratu daahirnimo weeye wal aslu sida asalka ku ah fil abdaaci furuujta iyo galmada sida asalka ku ah iyo wal luxuumi hilibyaha sida asalka ku ah iyo wan nafsi nafta dhexdeeda sida asalka ku ah iyo wal amwaali iyo xoolaha sida asalka ku ah iyo naf u sugnaatay lil macsuumi ruux naftiisa iyo dhiiggiisii la ilaaliyey oo ay shareecadu ilaalisay sida asalka ku ah waxa weeye at-tahriimu xaraam weeye tahriimuhaa xarimidooda ayaa asal u ah kaliya xalaal waxay noqon karaan xataa intii yajii'a uu yimaado alxillu xalaalayntii ilaa ay timaado ama kii xalaaleynayay ilaa uu yimaado ee fafham wiil yahow fahan ama gabar yahay fahan hadaaka allaahu allaha ku hanuuniye maa shayga yumallu lagu yeerinayo yacni lagu sheegayo waxa lagu sheegayo fahan allaha ku hanuuniye darsigana intaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي